ku akhri nebiyo magaca eebe ee abuuray khalqiga. 1 dadkana ka abuuray calaq. 2 akhri eebena waa kan sharafta leh. 3 ee dadka baray sida qalinka wax loogu qoro. 4 dadkana baray wax ayna aqoonin. 5 aayadahan qur-aanka ahi waxa ay ka mid yihiin suuradda Al-Calaq oo ah suuradii ugu horay ee ku soo degtay Nebi Maxamed taasi oo la faray in uu wax akhriyo. Suuraddani waxa aan ka dhex arki karnaa in furaha guushu yahay wax akhris. Wax akhrisku waxa uu qofka barayaa wax uusan aqoonin. Dunida maanta waxa lagu tartamayaa waa aqoon. Aqoontuna waa in qof ama dad garanayaan wax aysan kuwa kale aqoonin. Dadka guulaystay ee dunida ku nool waa dadyow ku kala duwan diin, midab, dhaqan iyo deegaan, isla markaasna tabaha iyo farsamooyinka ay ku guulaysteen kala duwan yihiin. Mid ganacsi iyo maal ku guulaysta, mid siyaasad iyo aqoon ku guulaysta iyo mid si kaleba u guulaysta. Waxaa jira hal wax oo ay dhammaantood ka siman yihiin, waana wax akhriska. Og Mandino waa nin aad u caan ah oo ahaan jiray askari duuliye Maraykan ah oo ka qayb galay dagaalkii labaad ee adduunka. Waxa uu duqaymo ka geystay Jarmalka. Markii uu dagaalku dhammaaday waxa uu ku biiray adeegyada caymiska. Mandino waa ku fashilmay. Subax ka mid ah maalmahaas waxa uu go'aansaday in uu isdilo. Isaga oo ku socda meeshii uu isku dili lahaa ayuu arkay maktabad wax akhris. Waa uu galay. Kadib waxa uu akhriyay buugta dhiirigelinta, gaar ahaan buuga uu qoray Napoleon Hill ee la yidhaah Think and Grow Rich. Maalintaa kadib waxa uu sii waday wax akhriskii oo ka hakiyey in uu isdilo. Waxa uu qoray buug badan oo uu ugu caansan yahay The World's Greatest Salesman oo laga daabacay in ka badan 5 milyuun oo lagu turjumay in ka badan 2 luuqadood. Waxa aan ka baran karnaa in wax akhrisku ka saari karo cidhiidhi kasta oo aad nolosha ka dareemayso, cagtana kuu saari karo toobiyaha guusha. Waa maxay faa'iidooyinka akhrisku?